waxaad tihiin guddi doorasho oo madax bannaan kana madax bannaan siyaasad iyo shakhsiyaad musharaxiina soo maaha waxaan dikreetadeedu ku qoran inaad ka madax bannaan tihiin wax kasta oo siyaasad qof kasta oo siyaasad ku jiro qof kasta oo musharax ah waa ka madax bannaan tihiin sida uu qabo habraaca doorashada waxaa laydinka doonayaa in aad waajibaadkiina aada u gudataan si daacad ah oo waafaqsan hufnaanta doorashada mas-uuliyad ayaa idin saaran kan hadda xildhibaanka ah ama senatoorka ah iyo midka soo damcaya oo hadda kadib soo tartamaya labadaba inaa u sinaataana la rabaa macnaheeda waxaa weeye inaadan midna hadda dhihin garabkaasaan ahay iyo garabkaas sidaan saaka idaacadda ka dhegaysanayay soo maahan in la maqlo waa mamnuuc maadaama aad dikreetadeedu kusoo baxdeen si sharci ahna aan idiin aqoonsaday inaad tihiin guddiga siid ee somalilan waxaan idin xasuusinayaa horena idinkugu sheegay inaad ku dhisan tihiin xeer ra-iisul wasaare sidaa awgeed waxaa idinla xisaabtami kara waa ra-iisul wasaaraha iyo madasha wadatashiga qaranka oo ah dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo ka mas-uul ah geedi socodka doorashada dadban ee dalka nidaamka doorashada guddoonka guddiyada waxa ay ku caddahay heshiiskii 27 May 2021 sidaa awgeed waxaa idin hagaya habraacyadaasi marka aad gudanaysaan waajibaadkiina iyo marka aad go'aan gaaraysaan inta aad ku jirtaan gudashada waajibaadkiina doorashada wixii caqabad ah ee aad la kulantaan waxa aad ula soo laabanaysaan ra-iisul wasaaraha oo ah hogaamiyaha doorashada dalka ra-iisul wasaaraha mas-uulka ah sida uu qabo anshaxa hufnaanta doorashada xubnaha guddiyada waxaa ka reeban in ay taageeraan sida aan dhowr jeer ku soo celiyey oo ay taageero gaar ah u muujiyaan si dadban iyo si toos ah musharaxiinta doorashada ka fogaada wixii saameyn siyaasadeed ah ma sheegan kartaan garab siyaasadeedaan nahay garab A garab B garab C waa inaad ka fogaataan waa inaad dhexdhexaad ahaataan haddii kale ma tihidiin guddi doorasho oo xor ah waxa aan maanta idin wargelinayaa in la baabi'iyey doorashada hoggaanka guddiga doorashada gobollada waqooyi ee horay garab A iyo garab B midoo raba ahad ay isku doortaan wax la jiraa ma jiraan doorashadaas waxba kama jiraan saa darteed waqtiga iyo goobta doorashada waxaa idin soo wargelin doona xafiiskayga iyo guddoomiyaha guddiga doorashada fiid waqtiga ku habboon oo laisku afgarto soo warcad maaha waa mahadsantiin waxaan rabaa oo halkaas aan kaga sii darayaa caqabadaha way badan yihiin mid maanta bilaabanaysa maahan waa mid ilaa doorashada ay ka dhammaato oo heer madaxweyne laga soo doorto mar kasta caqabad way jiraysaa midiinana waxay ka mid noqonaysaa kuwa ugu fudud kuwa ka adag ayaa idin soo mari doono marka waxaan doonayaa in wada shaqayn toos ah ay idinka dhexayso guddiga fiid uu hogaaminayo guddoomiye Ciro wixii ka sarreeyo oo la xallin waayo anigana waa joogaa xafiiskaygana wuu joogaa guddiga xafiiskayga u qaabilsan doorashooyinka oo korka ilaalinaya laakiin hawsha waxaa toos u wadanaya guddiga fiid oo uu hogaaminayo guddoomiye Ciro wax kastoo ku saabsan tashiilaadkeeda habsami u socodkeeda iyo ka warqabkeeda amnigeeda waxaasoo dhan waa wax guddoomiyaha aad kala tashanaysaan anigana aan diyaar u ahay inaan waxaasoo dhan idiin fududeeyo hadday tahay amniga goobta doorashada ay ka dhacayso waqtiga ay dhacayso doorashada senatorada doorashada aqalka hoose iyo tan madaxweynahaba waqtigeeda markii la gaaro